السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابته شرفت بدن أكو حنا channelka waxaan idin rajeynayaa farxad iyo caafimaad wanaagsan meel kasta oo aad ka joogtaan adduunka. Inta marka laga yimaado maanta waxaan ka hadlayaa mowduuc ka yar duwan mowduucyadii hore ee aan ka hadli jirnay. Mowduucan waxa igu codsaday inaan ka mid ah asxaabta ku xiran channelka. mowduucani ma khuseeyo dadka isqaba ama waqti dheer wada socday, laakiin waxa uu khuseeyaa dadka imika isbaranaya ama isku cusub. waxaan soo xulay 7 khalad oo ay sameeyeen wiilashu waqtiga shukaansiga ama isbarasho lagu jiro. arrimahan aan ka hadli doono oo sababa in ay inantaas ama gabadha ay wada shaqaysanayaan ay halka kaga tagto waqti yar oo cayiman gudaheed. khaladka koowaad ee ay wiilashu sameeyaan ayaa ah ammaan joogto ah oo aan marnaba dhammaanayn. waa wax fiican in mararka qaar aad gabadha wax fiican ka sheegtid oo aad ammaantid, ha ahaato waxay markaas samaysay dharka ay xidhan tahay ama quruxdeeda guud ahaaneedba. laakiin sheekadu waxay waalinaysaa markaad habeen iyo maalinba aad u sheegto inay qurux badan tahay. waxaa laga yaabaa in maalmaha hore inantu aanay waxba ka soo qaadin ammaantaa badan ee aad iyada ammaanaysid, laakiin waqti kadib waxay inantu bilaabaysaa inay u malaysoba inaad quruxdeeda keli ku qiimaynaysid oo aadba wax kale ujeedid aan ka ahayn guur iyo mustaqbal. tan kalena ku darso waxaad tusinaysaa inaadan iyada camal aan ahaynba aadan ahayn, taasoo keeni karta inay inantu ka shakiso degdegaagan kuna fikirtaba xaguu qofkan ku cararayaa iminka ayaanuba isbarannaa, taasoo keenaysa in xiisuuba uu ka dhaco inantaas ama gabadhaas halkaasna aad ku weydid. khaladka labaad ee ay wiilashu sameeyaan wakhtiga shukaansiga ayaa ah iibitaanka hadiyado joogto ah. inanta shalay ayaadba isbarateen, maantana waxaad bilowday inaad hadiyad u keento. waxaa laga yaabaa inaad adigu u aragtid in hadiyadahaas badan ay gabadha soo jiidanayaan, laakiin taasi waxay caddaynaysaa inaadan ahayn nin isku kalsoon. gabadha ama inanta aad shukaysanaysidna waxay u qaadanaysaa in aad tahay nin doonaya inuu qalbigeeda lacag iyo maal ku soo jiito. waxaa inta badan dhacda in wiilasha noocan ah ay habluhu isticmaalaan marka ay wax u baahan yihiin ay wacdaan si ay waxay doonayaan loogu sameeyo. wiilasha noocan ah waxay ku dambeeyaan in qolka walaaltinimada lagu tuuro, taasoo aan ula jeedo in aanay walaaltinimo waxaan aan ahayn ama aan ka badnayn aanay noqon. marka wax looga baahan yahay telefoonka lagu dhufto oo la waco. inanta qalbiga fiican waxaa laga yaabaaba inay isla markaaba runta kuu sheegto oo ay ku tiraahdo waad dheeranaysaa naadeero ee isira deji. khaladka saddexaad ayaa ah inaad mar kasta ka amar qaadato wax kasta oo aad doonaysid. haddii wax kasta oo aad samaynaysid aad ka baridid oo aad ka amar qaadatid idinkoo aan wax badanba is aqoon, waxay kaa dhigaysaa nin aan isu kalsoonayn, wax go'aan ahna aan lahayn. waa wax fiican haddii arrin muhiim ah ay jirto inaad ka wada hadashaan, laakiin mushkiladdu waxay imanaysaa markii wax kasta oo aad doonaysid inaad samayso aad ka amar qaadato iyada. waxaa laga yaabaa inaad isleedahay waa ay farxad gelinaysaa iyada, laakiin samaynta arrintani waxay keeni kartaa in wax xushmad iyo qadarin ah ay kuu haysay ay yaraato oo ayna kuu aragto nin aan go'aan lahayn oo aan iyada kaafin karin, mas-uuliyadda reerkana qaadi karin mustaqbalka. qodobka afraad ayaa ah inaad iyada u oggolaato in go'aan kasta ay idin qaado. qodobkani wuxuu u eegyahay qodobka saddexaad ee aynu ka soo hadalnay, laakiin wuxuu qodobkani kaga duwan yahay ayaa ah in qodobkani uu awoodda saarayo in go'aan kasta aad u oggolaatid iyada, halka qodobka hore uu khuseeyey inaad wax kasta ka baridid marka aad doonaysid inaad wax samayso. gabdhuhu waxaa la caddeeyey inay jecel yihiin dhanka go'aanka leh, wax kastana iyada tusi kara inuu samayn karo oo ka soo bixi karo. haddii aad halkan iska soo istaagtid oo aad ku tirahdid go'aan kasta inoo qaad, waxayba kala garan waayi doontaa inay la sheekaysanayso ciyaal iyo in kale. 5 inaad mar kasta raaligelin ka bixisid wax kasta oo aad samaysid. raaligelintu waa wax muhiim ah, xiriirkuna u baahan yahay. haddii qof idinka mid ah uu khaldamo oo ama uu sameeyo waxa aan loo baahnayn, waxaa muhiim ah in uu qofkaas raaligelin bixiyo. adigoo nin ahna weliba way ka sii xag jirtaa oo xagga raaligelinta mar walba waad kaga badan doontaa gabadha. laakiin sida aynu bilowgii soo sheegnayba mowduucan wuxuu khuseeyaa dadka iminka isbaranaya ama uu shukaansigu bilow u yahay. haddii wax kasta oo aad samaysid aad ka raaligelaysid, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa in messenger ay kuu soo dirtay aadan ba arag 5 minute oo 5 minute kadib aad aragtay, halkii aad uga jawaab celin lahayd message-kaas ayaa waxaa laga yaabaa inaad ku bilowday iga raalli ahow. hadda mar maaha, waxaan ula jeedaa waa joogto. arrintaasi waxay marka dambe keenaysaa inayba macal inantu kula yaabto. teedii kale raaligelinta bilaa macniga ah ee joogtada ahi waxay bixinaysaa inaad tahay nin jilicsan, arrintaas oo keenaysa inaad xiisaha ka riddo gabadha aad wada shakaysanaysaan. qodobkan 6 ayaa ah ka baqintaanka inaad la wadaagto fikradahaaga. haddii aad ka baqanayso inaad la wadaagto fikradahaaga, sababtan ay tahay baqdin aad ka baqanaysid sida ay inantu uga falceli doonto, waxay ka dhigan tahay inaadan naftaada haba yaraatee ku kalsoonayn. teeda kale faa'iidada kugu jirta waa maxay inaadan muujin shakhsiyaddaada runta ah oo aad iyada isaga dhigtid qof kale. wakhti kasta ha qaadatee kolba dabeecaddaada runta ahi mar bay soo bixi doontaa. haddii gabadhu aanay kaa arkayn in aad tahay nin isku kalsoon, wax kastoo iyadu tidhaahdana ku raacaya, waxayba ku arki doontaa shalmad raac, qiimo weynna kuma siin doonto. qodobkeena 7 ayaa ah
isku dayitaanka aad markasta isku daydo inaad nolosheeda ka mid noqoto qodobkan waxaan ula jeedaa inaad inanta tusid inaadan iyada u camalaan ahaynba aadan hayn taasoo aan ula jeedo wicitaan iyo qoraal joogto ah hadiyado joogto ah asxaabtidu aad doonaysid inaad wada baratid waqti cayma gudaheed iyo inaad markasta doonayso inaad iyada aragtid oo aad la kulantid maaha wax fiican sababtoo ah waxaad inanta tusinaysaa inaadan camal aan iyada ahaynba aadan lahayn adduunkaagii oo dhanna aad iyada ku soo wada koobtay sababta arrintan problem u keenayso ayaa ah inantan iminka ayaad isbarateenba wicitaankan iyo qoraalkan joogtada ah waxay tusinaysaa inaad tahay naflacaari taas oo iyadan xiisaha ridaysa sidee u aragtaa qodobadan adigu daawada nagula wadaag comments-ka hoose. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.